madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kormeeray xaruntan oo ah warshada soo saarta noocyada kala duwan ee qalabka dhismaha taasoo madaxweynuhu 60 cisho ka hor uu ka dalbaday hogaanka ciidanka asluubta inay dib u howlgeliyaan waxaana hadda ay bilowday soo saarista qalabka dhismaha madaxweynaha ayaa inta uu ku sugnaa goobtan waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan ee warshadan isagoo si gaar ah isha ugu hayay qaybaha wax soo saarka warshadan ee shaqada ku jiray taliyaha ciidanka asluubta dalka sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe ayaa ka hadlay dib u howlgelinta warshadan iyo waxa ay soo saarto waxa sharaf noo amaanta inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda soo booqdo oo soo booqdo plantiga ama warshada soo saarista qalabka dhismaha warshadaanu muddo dheer bay fadhisay ilaa 2016 bay fadhisay oo howlgab ahayd hadda ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu amray ciidanka asluubta Soomaaliyeed dib u kiciyeen muddo hadda laga joogo 2 bil maantay waxa sharaf weyn noo ah madaxweynuhuna aad ugu farxay ugu riyaaqay inuu arko warshadii oo wax soo saar wada 4 sano kadib oo ay howlgab ahayd qaybaha noo shaqeeyay waa qaybta muxuu ahaa bulkeetiga qaybta interloga iyo qaybta tubooyinka iyo qaybta soo saarta mar dhowna insha Allah waxaan galeynaa qaybta concrete soo saarta iyo qaybta laamiga soo saarta marka halkaan xaruntan waxay noqon doontaa xarun wax soo saar oo qaranka Soomaaliyeed leeyahay gacantan ay ku hayaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa goobtan wuxuu dhinaca kale eegay naqshada dhismaha warshad cusub oo loogu talagalay inay soo saarto dharka ciidamada qalabka sida taasoo madaxweynuhu uu faray in si degdeg ah loo bilaabo dhismaheeda waxaana uu sheegay taliyaha asluubtu in dhismaha warshadan ay dhawaan bilaabi doonaan warshad waxa jirtay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed loogu talagalay oo dharka samaysa warshadaas ayadana muddo ayay maartay aysan lagu guulaysan in la kiciyo madaxweynaha Jamhuuriyadda wuxuu amray ciidanka asluubta Soomaaliyeed inay kiciyaan naqshadii iyo qorshihii waa tusnay shaqadeena mar waan bilaabaynaa mar dhowna ciidamada qaranka oo dhan dhar anaga u soo saareen hadii alla horaantii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo kormeeray goobo danta guud oo ku yaala Muqdisho kuwaas oo lagu dhisayo ololaha isxilqaan oo madaxweynuhu hogaaminayo kaas oo ugu talagalay dib u dhiska dalkan Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya.